السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناسن داوديال meel kasto dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeen dhalinyarada oo aad ka daawataan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland toddobaad walba. Maanta barnaamijka waxa igu martiya mid ka mid ah haldoorka dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku magac dheer Farxaan Axmed Cabdi oo magac ahaan loo garan og yahay Coach Farxaan. ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka dhalinyarada ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Farxaan inteenan u guda gelin barnaamijkeena iyo mowduuceena kaga hadli doono waa maxay xiriirka ka dhaxeeya xirfadaha iyo shaqo abuurka dhalinyarada. inteenan u guda gelin horta dadka aan iskiin baro ku daawanaya Farxaan waa kuma. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aad baad mahadsan tahay Khalid. magacaygu waa khadar afwan magacaygu waa Farxaan Axmed Cabdi loo garan og yahay Coach Farxaan FF. waxaan ka mid ahay dhalinyarada tababarayaasha ah muddadii 6 sano ugu dambeeyay ka shaqeeya arrimaha horumarinta xirfadaha horumarinta shakhsiga iyo shaqada oo markaa la xiriira tababaradii horumarinta shakhsiyadda iyo shaqada markaa waxa kale oo ka mid ahay macallimiinta dugsiyada sare dhiga muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhigana luqadaha khaasatan suugaanta inta marka laga yimaado waxa kale oo ahay arday jaamacadeed sanadkii ugu dambeeyay wada kulliyadda HRM-ka ama madaxa shaqada iyo shaqaalaha maamulka shaqada iyo shaqaalaha kullay xogteedu daad iskaga kooban tahay inahaas waayahay horta bal xirfadaynu qeexno waa maxay xirfad horta xirfad magacyo badan bay leedahay marka la joogo xirfad horta waa aqoon ama waa farsamo gaar ah oo shay gaar ah oo sida tusaale ahaan haddii aad computerka taqaano ama sida wax loogu qoro taqaano qofkaas waxa la oranayaa farsamadii wax qoridda ama computeriska ayuu leeyahay xirfadu marka waa shay gooni ama shaqo waa aqoon gooni oo qusaysa shay gooni oo tusaale ahaan akhriska kale hadii lagu yiraahdo waxa la oranayaa qofkaas wuxuu leeyahay farsamadii akhriska ayuu leeyahay marka sidee ay ugu duwan tahay xirfadu aqoonta xirfadu horta waxa weeyaan aqoon la barto lana fahmo taasoo marka shay gooni khusaysa halka aqoontu tahay marka wax jaralaala oo de Ilaahay subhanahu wa ta'ala markii uu aadamaha abuuray oo callama aadama asmaa kullaha u leeyahay ka aqoontu iyadu waa jaralaal waa aqoon waa wax guud oo wax walba wax ka baranaysa oo de dunida lafteeda aqoona marka shayga kaliya tad ku si fiican tahay adigu ayaa la oranayaa wax xirfad marka maxay muhiim u tahay xirfaduhu oo shaqo abuurka dhalinyarada xirfaduhu horta waxyaabo ugu muhiimsan ee shakhsiga nashqadeeya maanta dad guri dhisayso oo gurigaasi aad u dheer yahay xajmigiisa iyo balciisuna aad u balaaran yahay oo ka maqan tahay nashqadeyntii iyo ranjiyeyntii iyo waxaan afka qalaad ee decoration wax micnaamo sameeyo marka qofka bini'aadankii aqoon ka soo leeyahay hadduu xirfad lahayn nashqadeyntii waa ka dhiman marka xirfaduhu waxay abuuraan shakhsi waxayna tusaan waxa ku fiican yahay marka soo garanayso waxaad ku wanaagsan tahay iyo waxa lagaaga wanaagsan yahay ama waxa la yiraahdo weakness and struggle waxaad noqonaysaa qof marka xirfadaysan ama nashqadaysan baad noqonaysaa marka ogaalka iyo wacaalka ayaabay nashqadeeyaan sababtaasina waxay ka dhigtay qof kasta oo maanta muhiima ama kaalin muhiima ku jira inuu yahay qof xirfado muhiim ah leh sidee ay xirfaduhu u yareeyaan shaqo la'aanta xirfaduhu horta marka hore way kala duwan yihiin waxna waa wax digital waxna waa wax marka theory inta ugu badan dalkeena waxa ka jira uun xirfadaha marka iska theory-ga marka qofku markuu aqoon soo dhigto ama uu aqoon barto waxa laga yaabaa in farsamo badan aanu haynin ama aqoontiisu u dekaniyad jabo waxba inuu soo kordhin laakiin markuu qofku xirfad leeyahay su'aalaan xirfadda marka ugu horeyso horta xirfadda horumarinta shakhsiyadda ayaa ugu muhiimsan oo haddii maanta shakhsiyan as garanayo waxaan ku fiicanahay codkaygu halkuu gaarayo
xirfadayda masrax ka hadal kalsoonideyda oo macal kalsoonidii baa xirfada marka xirfadaha ugu muhiimsan ee intii badan sanadadii ugu dambeeyeen aan ka shaqeyn waxa kamid ah xirfada la yiraahdo horumarinta shakhsiyadda iyo xirfada marka dad la hadalka ama waxa la yiraahdo public speaking fagaar ka hadalka xirfadaas marka waxay noqotay xirfad shay kasta asaasi ah oo aqoon kasto qofku leeyahay haduuna lahayn aqoontii xirfadii fagaar ka hadalka ama xirfadii isku kalsoonaanta ama xirfadii wax gudbinta fikrado badan ba marka ku dhex dhimanaya fikradiisina ma soo saari kare marka waxay kaga qayb qaadataa inuu qofku noqdo qof muhiim ah oo imika bilihii ugu dambeeyay xitaa waxaan qabtaa kulamo waaweyn oo 5 sano ugu dambeysay barnaamij la yiraahdo Halgan Public Speaking Awards oo barnaamijkaas oo sameynay 2020 gobolada Soomaaliland aan ka qabanay wax kale ma qabto waxa lagu soo bandhigaa aqoonta iyo fikradaha kala duwan qofka si ka dhex guuxaya taasina waxay sababtay dhalinyaro badan oo maanta ku nool gobolada khaasatan Maroodijeex iyo Awdal iyo goboladaas inay iyagoona xitaa heer jaamacadeed gaadhin ay shaqooyin wanaagsan ka shaqeeyaan maanta oo bishan ugu dambeysay shirkadaha waaweyn ee dalka qaar kamid ah ayaa saddexdii arday ama saddexdii qaar kamid ah tartamayaashii ugu sareeyay barnaamijkaas oo bisha Ramadaan qabano ayaa shaqo toos ah ka helay taasina waxay sabab u noqotay halkii dadka kale laga weydiinayay inay khibrad haystaan horta caqabadaha bulshada iyo dadkan kale marka founderska ama employerska ee loo shaqeynayo qodobka waxaan u sheegayaa bal inay dadka u yar dhimriyaan oo qofkii aan shaqo haynin bay oranayaan hal sano khibrada imika aan shaqo raadinaya khibrad kale xagee ka keena marka halkaana waxyaabaha kaabaya ee taa lagu bedeli karaa oo imika shirkado badan sameeyo waxa kamid ah xirfadda la weydiiyo marka qofka hadduu xirfadii garanayo waxa meesha ka baxay gaabkii ahaa in reerkoodii isku haleeyo waxa laga yaabaa dadkii la soo tacaalay markii hore waxbarashadiisii arrimihiisii kale in hadana shaqadiisii ay marka dambe hadana uu ku haleeyo taasina caqabad bay noqotay laakiin waxa kaliya ka saaray marka ama xirfadu muhiim u tahay waxa weeyaan inuu qofku iskii u shaqo tagi karo oo imika dhalinyar badan oo xitaa khaasatan anigu baan ku jiro ma garanayo qof family-ga ama ha noqdo qof mas'uul xil haya ama qof kale iska caadiyo intaan maalin u tagaan dhacdo warbalniyo shaqo ila soo raadiyo ama shaqo ila deeday waa muhiim haday dariiqaas ku furan yahay oo aad ku heli karayso laakiin hadana waxa kalsoonida 100% ka fiican taad adigu helaysa xirfadaada ku goynaysa oo inta badan ardayda waxaan kula dardaarmaa iyo dhalinyarada kale wax baraya xirfadaadu meesha ku fadhiisin karto ayuun baad fadhiisan kartaa imka waxaad aragtaa tusaale ahaan waxaan soo gelaynaa xaflad ama wasaaradda man tusaale ahaan soo gelaya tusaaladan kamaradaydii wato oo cid waxay weydiin mayso way xirfadeydii bay soo gelisay meesha magacaygu muhiim ma marka waxa kaliya ta qofka qeexa magaciisa waxaan ku yiraahdaa marar badan baan ayaan dhalinyarada ku yiraahdaa war magacaygu hadduu farxaan yahay de farxaan may marka goobaha shaqada la joogo marka qof walba xirfadiisa iyo ficiladu qabanayo waxay ka dhigayaan qof la aqoonsan yahay oo aqoonsiga ugu miisan waxa weeyaan adaa isbari karaya dadka maxaan isku baraysaa xirfadaha iyo ficiladaadii marka xiriir ma ka dhaxeeya xirfadaha iyo aqoonta way ka dhaxeeyaan imika dadka ugu badan ama dhalinyarada ugu badan ardaydii anaga wax u dhigeen oo ardaygu dadaalay baa laga yaabaa macallin waalidkay iyo dad kale ayaan niyada ugu dhisaya ama aan wax u baranaya waan caqabada ugu weyn haysata marka dhalinyarada aqoonta ay ka aaminsan yihiin taana waxaan ku xalin karnaa inuu horta qofku marka hore is aamino oo xirfadii markuu barto aqoontii markuu barto waniga kale aqoontu waa gurigii la dhisay xirfaduna waa nashqadeyntii marka waa decoration-ka xirfadu marka hore waa inaad aqoontii haysata tusaale ahaan jaamacad haddaadan dhigan laakiin xirfadahaagu marka ay ku kooban yihiin xirfaduna ay ku kooban tahay aqoontaada muhiim ma sii noqonaysa laakiin markaad iminka shahaado haysato jaamacadeed dugsi sare haysato dugsi dhexe haysato wax walba way ku fududaanayaan xirfadaadina ay ku sii laaran tahay marka waxaad noqonaysaa qof think outside the box ka baxsan ba aragtida yar ee dalka iyo xano meelo kale xitaa ka shaqeyn kara taana waxa ku saamaxayda aqoontaadii sidii ayay teknolojiyada u bedeshaa baahida xirfadaha horta muddooyinkii ugu dambeysay waliba dalkeenuna aad buu ugu wanaagsan yahay dhinacaas waxaa soo kordhay aqoontan soft skills-ka la yiraahdo ama soft knowledge-ka aqoonta sida fudud ama fogaan aragga lagu baranayo
oo qofkii oo dee halkan aad u Hargeysa joogaad wadamadii kale reer galbeedka iyo website caalamiya aad wax ka dhiganaysa taasina waxay suuro gelisay in ku fududaado maanta mobilkaaga aad haysato waa khayraadka ugu weyn marka uu qofkii dhalinyarada haysto oo imika tusaale ahaan AI-ga marka la joogo inkastoo imika laga sii guuray xitaa ChatGPT-ga kuwa waxa jirta ChatGPT oo kaliya taa dad xitaa schedule yar u samaysato habeenkii oo tiraahdo wani wallahi maxaa horta qofku waa in marka hore isbaadha markuu isbaadho imika haddaan xanuunsanayo tusaale ahaan tago goob caafimaad marka hore baa inaa su'aalo la weydiinaya halkee kugu daranaysa see lagu haya kadib baa hadhow marka la wareystay la baadha dee la ii qoraya dawadii marka qofku marka hore inuu isbaadho tusaale ahaan waxaan u baahanahay luuqadii baa igu adag luuqadii baad habeenkii tusaale schedule baad samaysato waxaad tidhi ChatGPT baad ku xidhay time baad ku xidhay waxaad ku tidhi habeen kasta 8 habeenimo waxaad ii soo daysaa 3 eray iyo macnahoodii kadibna bishii marka lagu dhufto waa 150 kelmadood ee dictionary-ga socdaad noqonaysa marka halkaasi aqoontii marka tiknoolajiyadii waxay fududeysay dee koorsooyin aad dibadda u tagi lahayd waxaan u jeedaa bareefadada iyo koolajada iyo goobahan marka lagu bartay aad u tagi lahayd adoo gurigii jooga adiga schedule u samays isaga ku xasuusinaya isaga su'aalo ku weydiinaya isaga ku micnaynaya isaga marka ku faahfaahinaya isaga haday doono dhisayna kaaga sameynaya isaga la sheekaysanaysa xitaa dad promotion iyo xogaa lacag ku shufto marka arrimahaas oo dhan way fududeysay sidii hore ma marka waxaan dhalinyarada inta badan kula dardaarmaya inay horta bal xirfadda markay iska dhisayaan qof marka hore horta ogaado waxa ka dhiman oo dukaan hadaan leeyahay dukaanka sharaab hadaan iibinayo leeyahay sharaabkii hebel ii dhiib liigu yiraahdo dee waan garanaya inuu ii yaaliyo inuu ii oolin qof marka hore inuu isbaaro isagu maxaa ka dhiman halkee taagan tahay maxaad u baahan tahay bishan maxaa kaliya qaban kartaa oo dadka ugu badan waxa weeyaan waxa kala hankoodii shaqadooda ayaa kala badan cid walba han weyn bay leedahay laakiin shaqadiina way yartahay marka hanku labada ha koobnaado hal hadaf bishiiba inuu qofku ka dhaweyn karo ama hal xirfad ka dhaweyn karo ayaa muhiim waa hagaag waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena dhalinyarada oo kala socotaan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidee ayay in xarumaha xirfad bixinta uga qayb qaataan shaqo abuurka xarumaha xirfad bixinta horta muddooyinkii ugu dambeeyay anigu waxaan kamid ahaa dhalinyarada aasaasay goobo xirfadahaas lagu bixiyo waliba soft skills-ka oo labaan u qaybino wax la yiraahdo personal development iyo employee development ama business development oo way kala duwan yihiin marka xarumahaas waxay ka qayb qaataan aqoontan la nashqadeynaya ka qayb qaadanaya qofka haduu maalintii ama dugsi dhiganayo gelinka hore kale ama uu jaamacad dhiganayo wixii inta ka dambeeya wuxuu u baahan yahay inuu ku nashqadeeyo wanaga nire xirfadu waa nashqadeyn marka waxay ka qayb qaataan in dhalinyar badan ay soo saaraan inta badan imika waxaad aragtaa dalkeena dad 10,000 kor u dhaafaya sanadkiiba jaamacada ka soo qalin bedesha ama dugsiyada taasina waxay sababtay ama niyad jab ku noqotay dhalinyaradii kale ku jirtay oo doorka ka hooseeya waxaad moodaa in hoos u dhac uu ku yimaado dhalinyaradii wax soo baranaysay sababtuna waxay tahay jaamacadii waan ka soo baxayaa si fiican baan soo qalin bedelanayaa ereyga qalin jabintu uu yar qaldan yahay qalin bedelasha leedahay si fiican baan soo qalin bedelanayaa kharash badan baa iga soo baxaya haddana berri talo waxa laga yaabaa inaan baskaygii xaafadii weydiiyo caqabad badan bay noqotay laakiin xarumuhu iyagu waxay sameeyaan khaasatan markaan soft skills bixinayno waxaan sameynaa tusaalaan xirfadda aan ku sheegayo kale la xiriira digital marketing waxa qofkii digital marketing aan barnay waxaan soo diyaarinaa barnaamijyo digital marketing markaasaan idhaahnaa maxaa digital marketing ka qaban karaysa tusaalaan qof baan kamaradii baray kamaradii baa la odhanayaa markaa imisa muuqaal baad samayn karaysa qof baan baray editorkii inta badan xitaa soft skills-ka iyo goobaha xarumo waxyaabahan bixino waxa kamid ah mobile application graphic design-kii oo kale isagoo qofkii mobilkiisii haysta in kasoo imka AI-gii waxaan baa ay nashqadeyn karayaan haddana ay software badan isagoo isticmaalaya telefoonkiisa kaliya isticmaalaya inuu markaa qofkii isagoo gurigii jooga ama goobihiisa waxbarashada jooga inuu shaqaysan karo
marka xarumahaasi aad bay u horumariyaan oo imika xaruntayada oo la yiraahdo Halgan Development Center arday isagoo qofkii ardaya ama dhalinyarkii ardaya ama shaqeeyaba ayuu haddana xirfadayadii aan barnay aan kaga daba tagnaayo aan kolba wareystaayo halkii shaqada marinayaan oo aan u sameynaa ka qayb qaadasho iyo dhiirigelin iyo kolba aan xasuusinaa inay xirfadiisu keentay meesha taasina waxay ka dhigtay markaa dad isku kalsoon oo shaqadii ay qabanayeen ay noqoto mid tayo leh marka waa hagaaga waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena dhalinyarada oo aad ka daawataan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidee ayay xirfadu u kobciyaan dhaqaalaha bulshada xirfaduhu waa naga nidhi waa qalab qofkii uu qalabeysan yahay marka waxay u horumarin karaan dhaqaalihii iyo wax soo saarkii qofku markuu xirfad leeyahay waa qof ku kalsoon markaa shaqadii uu qabanayay qofku markaas uu ku kalsoon yahayna imika waxyaabaha xitaa aynu dee suuqyada ku aragno iyo goobaha shaqada qofka xirfadda leh iyo qofka kale marnaba isma soo gaadheen qofka aqoon guud leh ama dee process kale shaqada lagu keenay iyo qofka xirfadda leh isku mid maaha tusaale ahaan waxaaba halka ugu hooseysaba ka soo qaad inanta nadaafadda ama inanka nadaafaddu markuu shaqadii garanayo ama xirfaddii uu leeyahay waxaa dhacaysa waqtigii inuu koobo waxa la yiraahdo efficiency waqtigii ugu yaraa iyo dhaqaalihii ugu yaraa ayuu ku sameynaya shirkadaha iyo goobaha shaqaduna intii doonayeenba waa intaa marka waxay u horumarin karaan in wax soo saar qofkii keeno sidoo kale markuu qofkii xirfad leeyahay wuxuu soo kordhin karaa hal abuur kale ama innovation kale oo shaqa oo iskii ayuu keeni karaa oo isagaaba dee sameynaya goobo kale oo wax soo saar keenaya tusaale waxaan aqaanaa sida shaaha loo sameeyo anigii baa sameysanaya goobo shaah marka taasina maxay sameynaysaa in dee dhaqaale iyo shaqaale kaleba halkii ka abuurmaan halkaana maxaa ku kordhaya dee dhaqaalihiiba ku kordhaya sidee xirfaduhu u kordhiyaan kalsoonida dhalinyarada anigii kuu sheegayo haddaan xirfad leeyahay waan isku kalsoonahay oo albaabka maxaa iga soo geliyay baan ku yidhi waa xirfadayda taasina waxay noqonaysaa qofkii marka la yiraahdo warniyo magacaaga marka hore ku soo galeysay marka xirfadaada ku soo galeyso marka xirfadaada ku soo galeysad kaga kalsooni badanta oo tusaale ahaan waxaan hay haddaan tusaaleyni hore soo qaadno kamaradiyahan baan hay waxaan soo raacay tusaale ahaan madaxdoo kale iyo way adag tahay in mararka qaar lala kulmi karo laakiin haddaan xirfadii leeyahay cidna wax weydiin mayso marka qofkiina kalsooni buu dareemaya oo goobtii xitaa markaan ka shaqeynayo in waxaan xirfadeydii yahay dee waan ku kalsoonahay taasina waxay sababaysaa inaanan cidna ka baqan laakiin markaanan xirfadii lahayn xilmay talo kula go'i doontaa xilmo lagu soo qarxin doonaa dee arrimo kale ayaa meesha ka soo baxaya marka kalsoonida qofka iyo shakhsiyadiisaba xirfadu way horumariyaan waayahay waxaynu si ku jirnaa gabagabadii barnaamijkeena sidee ayay waalidiintu bulshada uga qayb qaadan karaan kobcinta xirfadaha dhalinyarada horta waalidiinteena Allah barakeeye intii dambe waxaad moodaa inay la soo fahmayaan oo waxaan updating la yiraahdo ay noqonayaan oo ay dhalinyaradii fahmayaan oo berigii hore waxa 2020 wixii ka horeeyay qof markuu xirfad dhiganayo waxa dhici jirtay in mararka qaar waalidiina soo wacaan oo oran jireen aba kaale ma jimcaad wax u dhigaysaan ma iskuulkii baa lagu soo celiyay waxyaabo noocaas ama arrimo noocaas laakiin imika waxa laga yaabaaba iyagaaba mararka qaar xitaa habliyo kale oo mas'uuliyadooda soo kaxeeyo goobihii xirfadaha ay ku baranayeen ama khamiisii jimciyo kale ama maalmihii kale fasaxa soo kaxeeyo ogaado iyaga laftooda dad waaweyn baa ayaa ugu badan xitaa dadkan xirfadaha baro oo qofkii shaqadan kale caadiga uu ku daalaya laakiin markasta qofku xirfad barto tusaale ahaan doorkii hore sanadkii hore dad ku shaqeynaysay saxafi doorkan waa inaad ku shaqeyn karto video editor ama videographer wuxuuna ku shaqeyn karto marka taasina waxay sababaysaa in qofkii uu si kalsooni leh u barto marka waalidiin badan way fahansan yihiin oo inta ugu badanna waxay sameeyaan telefoonada iyo iPad-da waxyaabo u dhiibayaan waxay sameeyaan in xirfadaha ay kula dardaarmaan oo ama ay ugu xiriiriyaan oo inta badan day nagu leeyahay heerka maynu gaadhin ilmihii yar marka loo dhiibo telefoon waxa la wuxuu ka dhageysanayo waxa la wuxuu ka daawanayo dee la garan maayo oo wacyiga loo tilmaamayo laakiin waa loo tilmaamaya marka taana badanku way ku daba joogaan
imka telefoonka caqabada ugu badan inta badan xitaa dhalinyarada waaweyn ee dugsiyada aan wax ugu dhigno haysta waxa kamid ah telefoonka qofkii waxa laga yaabaa duruuf kastoo lagu jiro inay laga maarmaan tahay inaad telefoon aad hesho oo wiil iyo gabadhba in loo iibiyo hadda la doonto la soo amaahdo marka waalidiinta badankoodu kumay dhiirigelin jirin oo qofkii telefoonka waa loo dhiibaya wuxuu doono ma garanaysa imikana waxaynu aragnaa mararka qaar dee qof walba siduu fiyuus yar iyo waxyaabo meelaha hadda in lagu yaqaano ama waxaan caadnimada oo berigii hore dee ceeb bay ahaan jirtay wejigaa gubay bay noqotay bade qofkii dadkii uu bilaa weji ay noqdaan meel walba dad ka muuqata dee iyaduna caqabadeeday leedahay marka dhalinyar badan falal xun oo imka social media ku arkin oo kale qaar wiilal iyo hablo iyo rag isdhexgelaya waxyaabo kale baraanka iyo waxyaabo caqabadahaas jira marka waalidiintu inta badan waxay kaga qayb qaadan karaan inay qofkii bal khaasatan ardaydii oo kale ay la socdaan oo ay markay ugu yartahay ay ku dhiirigeliyaan oo haddii qofkii aan dhiirigeliyo iyo haddii aan la diriro way kala duwan yihiin marka in la dhiirigeliyo oo dhalinyaradii lagu yidhaahdo war mobileka ilaahay baa ku siiyey ama fursad buu ku yahay inaad markaa social media iyo waxyaabihii kale ay si fiican uga faa'iidaystaan ayaabay ka qayb qaadan karaan oo ay ku kordhin karaan markaa xirfadahoodii iyo sidoo kale de waa kuwan ka bixinaya waxbarashadii xibe in xagga xirfadaha u badiyaan oo qofkii xagga xirfadaha sida iskuulka loogu dardaarmayo xagga xirfadahana loogula dardaarmo ardaygii marka waa hagaaga barnaamijkeena dhalinyarada oo ka daawataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo noogu marti ahaa maanta Farxaan Axmed Cabdi oo kamid ah haldoorka dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku magacdheer coach Farxaan intaas uu inaga dhayahay waa soo saaristii Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xeefo iyo farsamadii iyo isku dubaridkii Cabdifataax Ismaaciil Cabdullaahi si araga intaan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waxaan idinku tagi doonaa kulantada biyaamaana Allah